qaarkood baa u arkay jamhuuriyadda Somaliland oo ah dad Soomaaliyeed oo 30 sano la soo dhaafay ku dhashay gobolladii la dhihi jiray gobollada waqooyi ee Soomaaliya haddana ah Somaliland markay xornimada qaatay 1960 June iyadoo oo Somaliland maalinta option u haysatay in ay dawladnimo iska noqoto waxay ka doorbiday inay raadiso midnimo Soomaaliya waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliya kala qaybsan ma jirto Soomaaliya waa mid dhulkeeda wayna ogaataan taa Soomaaliya waxa ka jira maamul isdiidan oo dadka meelo kala gedisan ku kala haysta haddii waqooyi tahay waxa jira maamulka Somaliland waa political system ku salaysan falsafada uu ku salaysan yahay tahay gooni goos labadan aragtiyood waanu goosanay iyo midnimada Soomaaliya waa muqaddas labadaas jumlo sidii laga yeeli lahaa aan dhalinyarada markaan aan fursad siino shantii gobol ee British Somaliland la oran jiray ma ka midaysan yihiin fikradda ah in ay Soomaaliya inteeda kale ka go'aan horta garbay markaa u lahaayeen in ay go'aan oo ay tala markaas ay ka dhow ay sameyn kareen ma jirin in dawladda sameystaan oo goonistaas ku dhawaaqaan waa ma sababta keentay ilaa hadda wali meel lagu soo noqdo ma muuqdo waayo annaga hadda koonfur joogna heshiiskii midowga waxa ku qoran Somaliland iyo Soomaaliya waxay ku midoobeen halkan ay taala marka inagu magacaas ka hadlaynay kiyamben ka hadlaynay reer iyo qabiil mid ka hadlaynay dhibaatada markii ka hadlaynayna waan ka sii afrifta anu reer iyo qabiil iyo gobol midna ku soo hadal qaadin sool iyo sanaag iyo togdheer hadii aad sheegayso iyaga laftooda waxa weeye sidoo u dhigaysay ma ahan fikirka goosashadu waa fikir laakiin qabiil ma qabiilka Somaliland dagood dhami qaarna ma qabaan goosasho qaarna muxuuha union iyo muxuuha midnimo raadinaya taas sax ma laakiin waxa jira dad fara badan oo xoogan oo meel walba jooga oo midnimo Soomaaliyeed raadinaya ha jooga Laascaano Hargeysa Boorama etc way buuxaan kuma kala qaybsanahay waxa kaloo jira dad magaalooyinka iyo gobollada degan oo ah muqarrarsaay dayhad Somaliland ku dul dhimanaya ayaa jira walaalaheen reerugooyiga dibki gaaray la xanuunsanayno aan dareemayno injustice ka dhacay damaarkii loo geystay calooshud u shaqaysteen loo soo kireystay South Africana diyaaraddu ka kacaysa Hargeysa ay duqaynayso ciidan u aaba yeelay masaajid guri malcamad quraan iskuul isbitaal mid jidka socda idan u aaba yeelay agta marinaysa ma aqbalay laakiin haddana rajiimka sidaa sameynayay iyo state-ki oo magaci dawladnimo saas lagu sameynayay labadaba joogaan anagana mas'uulka mini mana ogoleen arrinkaas waa inuu cadaada very careful maanta inaan joogno waqtiga ugu baahi badnayn dawladnimo Soomaaliyeed oo dhammaystiran ama heshiis ummadda Soomaaliyeed oo lagu noolaado waa maanta maalinta ugu miisaaneed Soomaaliyeed dadka federalismka aaminsan waxay diidan yihiin dawlad dhexe oo unitary system oo meel dhexe dawlad markazi oo meel dhexe laga maamulo oo xoogan oo iyaga qabsato si doonto u maamusho waqooyiguna waxay ilaa xadka u socdeen waxa weeye in wixii ku dhacay aan dib ugu dhicin oo iyagu taladooda ay yeeshaan marka aniga waxay la tahay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed horta in la soo celiyo kalsoonida ma kuma soo noqonayso laba siyaasi oo meel wada fadhiistay Hargeysa waxaan ka codsanaynaa fur albaabka waxa aad meesha ku haystaan walaalaheeno ay idil aragno anigu ma dhahay ha goostaan laakiin wax dhibaataba ma laha u gudino hadda hadayna dhinac degaan oo dawlad walaalaheena ay noqdaan inta roob Soomaaliya waa dal aad u weyn qadar ayaa ma maqashay konton iyo 6 dawladood oo qadar oo la isku daray Soomaaliya ama ka weyn